waxay yidhahdeen waxaanu samaynaynaa sharqu awsat jadiid oo calaa xasabi nidaam alcaalami aljadiid waafaqsan siyaasadda bariga dhexe oo la bedelayo siyaasadda bariga dhexe ee la rabo waa maxay siyaasatu tatbiic waxaanay jaraa'idku iminka inoo qoraan ee la bedelayo wejigay yeelanaysaa inaynan inagu waxba ku darsan baa la qaatay aan kelmad idhaahda iyagu ay yidhaahdeen Allen Austin waa la taliyihii siyaasiga ahaa ee Ronald Reagan ayaa wuxuu ku yimi Kuwait ayuu ziyaara ku yimi dabeetana muxaadara buu ka hadlay muxaadaradii markuu jeediyey baa su-aal la weydiiyey waa Kuwait buu dhex jooga dabeetana lecture buu jeediyey lecturekiisa kadib baa su-aal la weydiiyey xawla almustaqbal الsiyaasi liduwal الkhaliij baa la yidhi ka war mustaqbalka siyaasiga ee duwalka khaliijku siduu u ekaanaya weedhiisii intuu hadlay buu wuxuu yidhi israa'iil buu yidhi waxay noqon doontaa cudwi ama xubin ka mida majlisu tacaawun alkhaliij alcarabi buu yidhi hadda ma aha majlis alcarabiga iyo waxaa waa israa'iil waa nin maraykan ma aha nin maraykan oo caadiya waa mustashaar kii arrimaha siyaasiga madaxweynihii dhammaayee hore tegey xaguu ka hadlaya ma aha maraykan iyo meelahaasi fii daakhili kuwait buu muxaadara ka jeedinaya dadkiisii muxaadarada dhegaysanayay ee mustamiciintii akaarimta ahaabaa su-aal markay weydiiyeen ka waran mustaqbalka khaliij alcarabi ayuu wuxuu leeyahay israa'iil waxay cudwi ka noqon doontaa majlis altacaawun liduwali alkhaliij alcarabi dabeetana buu yidhi majlisu tacaawun duwan alkhaliiji wuxuu israa'iil korkeeda saari doonaa ximaayatu araadiha min altahdiidaat alcaskariya liduwali almujaawara buu yidhi israa'iil buu yidhi inay u ilaaliso dhulka duwalulkhaliijka ciidan ahaan oo ay ka ilaaliso kuwan jaarkeeda kusoo warwareegaya hada hiya siyaasa nidaam caalami jadiid wuxuu raadinaya waa kaa waxaa idinkaga filan nidaam caalami jadiid wuxuu raadinayo naa'ib الra'iis alamriiki markii mu'tamarkii madrid la furayay ayuu hadlay wuxuu la hadlayaa carabtii meesha isugu timi kelimat اliftitaax buu leeyahy carabta waxaa la rabaa inay la heshiiyaan israa'iil kelimat اliftitaax uu ra'iiska ama madaxweyne ku-xigeenkii maraykanku ku furay ma taqaana bimil'i fami buu intuu hadlay bu wuxuu yidhi nimankiinan carbeed dhammaantiin mahzuumiin baa tihin buu yidhi yani waa ina isdhiibi dhammaantiin waa jabteen buu leeyay waa kelmaddii mufaawadaadku ku bilaabmayey ee uu jeedinayo maxay naa'ib الra'iis alamriiki waxaynu leenahay bahalka cusub ee la sheegayo nidaam alcaalami aljadiid ama maalan sharqulawsadka cusub iyo sidii u ekaanayo mufaawadaad baa lala galay balastiin iyo waa kanoo caynkaasaa la yidhi mufaawadaadkiyo xagga lagula galay bay israa'iil waxay bilowday qudus alqismi sharqi inay mustacmaraad jadiida ka dhisto oo aan markii hore dee wax baciid ka ahaa saa mufaawadaadkiiyo waxa ka lagu gelay markaasay united nationkiis yaro qaqaato la yidhi way yaro hadhadleen muddo 5 sannadood oo isagoo aan baarqabkan dunida ku doobiya aanu erayga veto ah isticmaalin ayuu ku isticmaalay veto in arrintan lagaba hadlo gebigeedba 5 sannadood ka hor vitodii hore maraykankuna nafsu lqadiya bay ku saabsanayd qadiyadda israa'iil bay ku saabsanayd nidaam alcaalami aljadiid iyo sida uu dhigayo waxa idinkaga filan wasiiru khaarijiyatu israa'iil baa khudbad jeediyey bal hadda u fiirsada waxaa waraysatay jariidad yuhuuddu ay leedahay hay-ada jariidadooda la ydhaha markaasu wuxuu ka yaabay wasiiru khaarijiyi wuxuu ka yaaban yihi shooqan iyo maxabadan carabtii qaaday iyo sida loogu soo kala dheeraynayo buu ka argagaxay dabeetana intuu hadlay buu baris ba wuxuu leeyahay akhaafu ida ma istamara alxaalu cala hadihi alwatira asariica an yuطaalibuna biاlindimaam ila aljamica alcarabiya buu yidhi min makhaawifihi bay ka mid tahay nimankan carbeed buu yidhi xubbiga kan qaaday sidan degdegta ah hadduu u socdo buu yidhi waxaan ka baqayaa buu yidhi inay iminka naga dalbadaan inaanu jaamica alcarabiya ku biiro israa'iil baa ka cabsanaysaa in la yidhaahdo hawiyadiini yuhuudinimada ah tuur oo dee iska soo gala aljaamica alcarabiya baqaha markuu wasiirulkhaarajiyuhu qabo ayaa jaamica alcarabiya kii haystayna hadlayaa cismed cabdilmajiid wuxuu leeyahy
inta xafladdii kontonaad la dhigi waayey ee ay lahayd jaamica alcarabiya ayuu kii haystay markaa dawaqsan yahay wuxuu leeyay waxaan aad hal yacqal miyay wax maanka gasho tahay buu leeyay inay meeshan jirta buu yidhi musaalaxa ama heshiis carabiya israa'iil dhex mara oo jaamica alcarabiya ay qaban kari weyda buu yidhi musaalaxa carabiya isna taasuu ka yaaban yahy ninkan odaygina wuxuu ka yaaban yahay in yuhuudda lagu daro in carabta lagu daro waxaan leenahay laakiin